waxa lagu naanaysaa ninka birta iyo suntaraha waxaana loo aqoonsaday tartanka musaaracada ninka ugu dugaagsan uguna daran wuxuu kooxaha shaftada ku biiray isagoo jira da'da 12 jirka markuu 13 jir ahaana waxa la xiray in ka badan 30 jeer 20 jirkiisii ayuu noqday ninka ugu da'da yar ee feertanka ka qayb gala waxa lagu eeday inuu kufsaday gabadhii ugu quruxda badneed dalka Mareykanka waxaana lagu xiray xabsigaas ayuu ku islaamay oo diinta islaamka ku qaatay waxaanu la baxay magac cusub oo magaciisa hore ayuu iska bedelay magaciisa hore wuxuu ahaa Mike Tyson magacii dambe bixistina wuxuu ahaa Malik Abdulaziz waxyaabaha ragga ka soo horjeeda uu ku xeejin jiray ayaa ahayd inuu feerkiisu degdeg badnaa oo uu si dhaqso ah u feeri jiray difaacana uu si qurux badan u xiran jiray wuxuuna gaaray heer uu kaga badiyay hal wareeg ciyaartooyada ka soo horjeeda waxa kamid ah oraahyadii iyo xikmadii dhaxalgalka ahaa ee uu ka tagay qof kastoo la dagaalamaysa maaha cadawgaaga qof kastoo ku caawiyana maaha saaxiibka 2 waa nacabahay daqiiqad walba ku qaato tababar balse waxaan ku dhaadaa naftayda hajarin ee samir xanuunsa imika una noolo noloshaada inta ka hadhay sida championska 3 qof kasta wuxuu leeyahay qorshe ilaa laga feero wajigiisa iyo afkiisa 4 waa inaad la dagaalantaa maalmaha xun si aad u hesho maalmaha ugu fiican noloshaada 5 ha tirin maalmaha ee ka dhig maalmuhu inay adigu tirsadaan hayloobin inaad like saarto muuqaalkan sidoo kalena aad nagula saaxiibto barteena TikTok iyo barteena YouTube